Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada guys meel walbo aad joogtaan. Maantay waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan population-ka adduunka iyo tirada dadka ku nool adduunka oo soo siyaadaysa bilba bisha ka dambeysa. Tusaale ahaan, qaaradda Afrika waxaa lagu qiyaasay dad gaaraya 22 milyan oo ruux in ay ku soo siyaaday dhowrkii bilood ee u dambeysay. Qaaradaha Yurub, Ameerika iyo weliba Eeshiyada galbeedna sidoo kale dad aad iyo aad u fara badan ayaa ku soo siyaaday. Dadka ama population-ka ugu badan adduunku wuxuu ku nool yahay qaaradda Asia, waxaana la rajeynayaa kaalinta koowaad ee adduunka waddanka ugu horeeya inuu noqdo sanadkan soo socda ee 2023 waddanka Hindiya. Horey kaalintaas waxaa ugu jiray waddanka China oo kaalintiisa xajisanayay muddo aad u fog. Soomaalida ku nool adduunka ama daafaha caalamka waxay boqolkiiba 95 ay ku nool yihiin dhanka baadiyaha, ayagoo magaalooyinkuna sanadihii u dambeeyay ay dadku soo qulqulayeen. Haddaba saaxiibayaal, waxaan ka hadli doonaa waa maxay faa'iidada ay leedahay soo badashada dadku ay soo bataan adduunka ay ku soo bataan. Maxayse dhibaatada ayay leedahay dhanka kale markii laga fiiriyo. Kala duwanaanshaha luqadaha, afafka iyo dhaqamaduba waxay ka dhigaan dadka in ay mar walba marka ka dambeysa ay soo siyaado ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo horumarka bulshooyinka caalamku ay higsanayaan. Maadaama lagu jiro saban ama waqti tiknoolajiyadu ay tahay waxa kaliya ee loogu baahi badan yahay adduunka. Reer Yurub ama reer galbeedku waxay ku fikiraan maalinba maalinka ka dambeysa in ay soo saaraan ama ay la jaanqaadaan tiknoolajiyada adduunka iyo horumarinteeda si loogu horumariyo deegaanka, isbeddelka cimilada, caafimaadka, waxbarashada iyo weliba in hawada sare ee satellite-ka la gaaro si loo horumariyo internet-ka iyo xawaaraha connection-ka aaladaha korontada ku shaqeeya ay isticmaalaan. Qaaradda Afrika waxaa lagu tilmaamay inay tahay qaarad u nugul disasters-ka ama dhibaatooyinka adduunka ka dhacaya ee ay sababtay cimilada adduunku ay sababtay. Sida looga hortagi karana waxay tahay isku xirnaan bulsho iyo mid qaaradeed iyo weliba in dowladaha ka taliya qaaradda Afrika ay ugu horeeyaan madaxdoodu in ay shir muhiim ah oo miro dhal ah ay ka yeeshaan sidii wax looga bedeli lahaa maamulka ragaadiyay ee dimuqraadiyad la'aanta lagu tilmaamo in ay ka wareejiyaan dalalkooda. Kadibna ay nidaamkaas oo dhan gebi ahaanba tirtiraan ayagoo u beddelaya nidaam dimuqraadi ah oo dadku ay isku soo doortaan codkooda iyo weliba xorriyadooda iyo ayagoo dooranaya qofka ay ayagu rabaan in uu wax u qabto. Fikradda ugu muhiimsan fikraddaas weeyaan. Dadka Soomaaliyeed maxaa faa'iidaha ku jira? Soo badashada adduunku waxay kugu saameynaysaa si dhaqso ah hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba. Sidaa darteed Soomaaliya oo ah waddan daciifa oo hadda soo koraya oo hay'adihiisa iyo constitutionskiisa dhammaan ay yihiin kuwo hadda la ababinayo, waxay faa'iido inoogu leedahay in dalkeena uu la tacaamulo adduunka, nalaga cafiyo deymaha lagu leeyahay, nalagu sameeyo waddankeena lagu sameeyo investment, maalgelin lagu sameeyo annagoo leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo ay ceegaagaan noocyada kala duwan kheyraadka badda sida malaay,
jeertii wax walba iyo xayawaanaadka dhammaan faa'iidada lahaa oo lagu nacfinayay dhex ceegaaga badeena. Sidoo kale waxaa maalgelin lagu sameyn karaa iyo horumarin si nolosheena aan u bedelno wax kheyraadka ku jira beriga sida gaaska, batroolka